waa goob waxqabad runtii aynu taagannahay waa wasaaraddii beeraha iyo xafiisyadeedii aad iyo aad baan ugu hambalyaynaya wasiirka wasaaradda beeraha oo runtii saacadii u dambeeyey ama muddadii u dambaysay ku guulaystay inuu maanta halkan dhagaxa inoo dhigo annan farxadiyo waxay tahay taariikh gaara runtii in muddadii yareedeen gaabnaydeen gobolkan aan badhasaabka ka noqday aan mashaariico badan oo runtii tani ugu dambayso aan goobjoog u ahaado sida waddooyinka iyo maxaanku idhaahdaa gurigii martidoo aan xadhigga ka jarray ama gurigii madaxtooyada ee gobolka runtii waa arkaysaano waxa weeyaan waa waxqabadka ballaadhan ee aan la soo koobi karin ee xukuumaddani intii ay xilka haysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay ku tallaabsadeen ama xisbiga kulmiya aad iyo aad baan runtii aan ugu mahadnaqaynaa dadweynahana waxaannu leenahay war ka abaalceliya waxqabadka indhaha ayaan laga qarsanna waxa muuqda ha laga abaalceliyo waxaa maanta noo farxada inaad noo dhagax dhigto xafiiskii beeraha ee gobolka awdal dalka burburku intuuna ku dhicin gobolka awdal xafiisyada wasaaraddu beerahu ku leedahay waxay ahaayeen kuwa ugu ballaadhan ee ugu badan ayay ku lahayd wayna ku mudnayd in gobolka awdal ay xafiisyadaa yeelato waayo waxa weeye waa gobol wax soo saar weeyi gobollada ugu horreeya ayay iyada iyo gebili ay ka mid yihiin waxaa dhacday xafiisyadoodii in dadgalo xaruntan aynu ku dhex jirna maanta iyo guryahan badana inagu teedsan waa guryihii wasaaradda beeraha marka intaas maanta aqalka aannu ka dhisayno ayaannu dhulkii ka helnay waxaana noo sharafa muddaxileedkii madaxweynaha haddaad madaxweyne xigeenka u tahay intuuna dhammaan anna sharaf gaaraya inaan ku guulaystay in gobolkii awdal xafiis wanaagsan oo ay ku shaqayn karaan in laga dhiso horta ilaahay baan bahadle iskuulkeenkeeda halkan maantana gobolkii ugu beero badnaan jiray maanta loo dhagax dhigayo oo xukuumaddan uu galwadeenka ka yahay axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo cabdiraxmaan saylici oo madaxweyne ku-xigeenkii oo maanta nala jooga in maanta dhagaxa loo dhigo ilaahayna waan lagu ducaynaynaa inuu inoogu barakeeyo dawladdana waan lagu ducaynaynaa dhagaxa maanta noo dhigtay waxaana leeyahay maxaan ku lahaa maqbuulo allah haynaga dhigo haynooga dhigo innaguna aan ku dadaallo dhulkan aynu maaragtay dadkii dawladdu meesheedii ahayd ee laga qaadayna dee wax badanoo laynuugu qabanayaa jiree in maaragtay dadku ay ka foojignaadaan inaan ka soo qayb galo xafladda furitaanka xafiiska wasaaradda beeraha ee gobolka awdal runtii waxa weeye waa wax lagu farxo anna nasiib ayaan u yeeshay alxamdulilaah marka waxaan doonaynaa dadka reer awdal inay xisaabtamaan oo waxa weeye gobolka wixii laga qabtay muddadii uu joogay kulmiye way caddahay marka waxa weeye abaalka waa la celiyaa reer awdal waxa weeye kulmiye wax badan buu qabtay kulmiyaha soo socdaana intaan ka badan ayuu insha Allah qaban doonaa marka waxa weeye waa guul waa wax wanaagsan waxaan hambalyo u dirayaa ana dadweynaha guud ahaan in ay sideedaba mar walba ay ka fikiraan sidii ay future-kooda ay wax ugu darsan lahaayeen waa kulmiye waa future-kii gobolka marka taasna halkaasaan ku joojinayaa runtii farxad weyn bay tahay inaan halkan maanta aan ka dhagax dhigo xafiiskii beeraha gobolka awdal haddaan taariikhkan ku noqdo meeshaan arkaysaan saa uu sheegay wasiirkii waxaa lahaan jirtay wasaaraddii beeraha lahaan jirtay anigoo da'yar oo 3 sano sanadkii saddexaad markaan shaqada aan bilaabay 82 waan ahaa injineerka dhisay 5 guri dhisay 5 guri ee meesha ka dhisnaa oo bariga uu maalgelisay World Bank adduunku maalgeliyay mashruuc la oran jiray North West Agriculture Development ama mashruucii horumarinta beeraha gobolka Waqooyi Galbeed la oran jiray waxaan ku faraxsanahay maalinta oo inaan dhalinyaro ahaa oo shaqo ay bilow ahayd inaan ahaa injineerkii 5 guri dhisay isla sanadkii 1988kiina deerka ku wareegsanay maanta bixiyay meeshaas maanta dhulkan laguma soo gaadheen maanta inay dawladda yeelato laguma soo gaadheen iyaan mar labaad haddana anu waan dhisnay 1988 shirkadayadii moodka nogaha
odaygii maartay taariikh weyn ku lahaa boore xasan xaddi qayaad